والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولي waxaan kugu jirnaa barnaamijkeeni cashirka mataxanaha ahaa. maanta waxaan ka hadli doonaa ama aan xalin doonaa exercises ku saabsan tenniska aan hadda ku wada jirno ee ah present perfect continuous tennis. tookadii hore waxaan ka soo hadalnay ama xiisadeen ka horeysay waxaan ka soo hadalnay example kale oo la xiriira tenniska shanaad aan ka hadalnay. tennis shanaadna waa fahanay qaabka uu shaqeeyo, qeexitaankiisa, waxyaabo uu ka hadlaayo, muxuu qabtaa, sidoo u shaqeeya, intaba waan ka soo hadalnay. hadda maanta waxaan rabnaa doolaya inaan noqdo ama slide-ka nooshidan u yahay inaan exercise-kan xalino. balse ka hor inta aanan u wada gelin exercise-ka waxaan rabaa channel-ku waa channel cusub. haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawato channel-kani ama aad aragto, fadlan adigoo mahadsan subscribe, share, like intaba dhaga noogu sii si aad u hesho casharo, garaamaro, tennisyo, practical aad u fara badan adigana ku xiisi geliya kana ku soo jiita. fadlan intaas dhan dhaga noogu sii waa codsi wanaagsantiin. okay, maanta slide-ka waxaa noo saaran exercise oo uuna leeyahay change into present perfect continuous tennis. waxaad u bedeshaa tenniska soo socda 3 exercise aan qoran 1 2 3 baan oo qoran. waxaa u bedeshaa tennisyada noo qoran, waxaa u bedeshaa present perfect continuous tennis. tenniska oo hadda aan ku jirno tenniska shanaad. tenniska Soomaaliya, tennis koowaad, labaad, saddexaad, afraad, shanaad. intaas tennis waan soo qaadanay. koowaad waan soo qaadanay, labaad waan soo qaadanay, saddexaad waan soo qaadanay, afraad waan soo qaadanay, shanaad hadda waxaan ku jirnaa shanaad. hadda waxaan maraynaa exercise-ka uu leeyahay ama slide-ka uu naga siiyey tenniska shanaad. okay, su'aasha koowaad waxayna leedahay she will speak to me tomorrow. wuxuu ku leeyahay she ayadu will speak to me way ila hadli doontaa tomorrow berito. horta awalan intaanan tenniska bedelin, horta awalan waa inaan fahanaa tenniska tennisku yahay dhacdoona ka hadlaa. waa inaan fahanaa intaan horta aan ku degdegin, aan tenniska aan u wareejin, aan kala wareejin, inaan isaga tennis su'aasha noo qoran inaan fahanno waa tennisku yahay dhacdo ka hadlaa. ma dhacdo laga soo tagay miya, mise dhacdo loo socdo miya, mise dhacdo maalin kasta dhacdo waa, mise dhacdo dhacayso waa. markaan fahanno kadib ayaan xalin karnaa. muxuuna dhahay marka she will speak to me tomorrow, way ila hadli doontaa ayadu berito baan dhahay. tenniska afraad future waa. ila future-ta maxaa ku fahmay? tomorrow waa ku fahmay, adverb of time-kana waa ku fahmay, will-na waa ku fahmay. will yaa ku shaqeeya iyo auxiliary yahay. tenniska afraad auxiliary yahay. tomorrow waa ku fahmay, adverb of time-ka waa ku fahmay. okay, aan ka dhigna marka tenniska shanaad aan tenniska hadda aan ku jirno aan u bedelno. maxaa marka she auxiliary maxaa waa? has waxaa qaataan kuwa singular-ka ah, have-na waxaa qaato kuwa plural-ka ah. maxaa marka she maxaa marka she has been speaking to me since yesterday ama last year. أنا she will speak to me, she will speak to me tomorrow. أنا بدلي she has been speaking to me وإلى hadlaysay baan dhahay. iyadu way ila hadlaysay. okay, then su'aasha labaad waxaa la will your father work, miyuu aabahaada shaqay doonaan baa layidhi. will your father work, miyuu aabahaada shaqay doonaan baa layidhi. okay, aan bedel tennisha maxaa dhahaa your ay maatoma ila waa singular. aabahaaga waa singular, waa adiga you waa tahay. auxiliary have waa, balse adig ma laga hadlaayo, waxaa laga hadlaa adiga aabahaaga laga hadlaa. waxaa la marka your father maxaa la marka will your father work, miyuu aabahaada shaqay doonaa. maxaa la marka has your father been working, miyuu aabahaada shaqaynayay baan dhahay. ha u bedel marka macnaan has your father been working, miyuu aabahaada shaqaynayay. maxaa turnay willna waa turnay, auxiliary waa tennis afraad auxiliary tahay. working waxaan ku daran ing ku daran. ila tennis shanaad wuxuu yahay vacancy, waxaa ku shaqeeyo ing lagu daran marka. macnaa marka has your father been working, miyuu aabahaada shaqaynayay. kan ugu dambeeya exercise uu leeyahay maxaa waaye what will they come here, maxay will ayagu they come here halkan uma doonaan. maxay ayagu halkan uma doonaan baa noo leeyahay. oo bedel international maxayna what have they been
coming here maxay ayagu halkan u imaanayeen baa u badan macnaa marka maxay ayagu halkan u imaanayeen macnaa what have they been coming here maxay ayagu halkan u imaanayeen bana maxay ayagu halkan u imaanayeen marka tenniska afraad wuxuu dhan waxaan ku shaqeeyaa wiil ku shaqeeyaa kadib waxaa tuuraysaa wiilkaa tuuraysaa waxaa ku bedelaysaa auxiliary tennis shanaad uu leeyahay kadib adverb time uu leeyahay tennis shanaad aad siinaysaa marka tennis kasta intaanan bedelin waxaa fiirinaysaa tenniska ku qoran tenniska waa ma tennis koowaada ma tennis labaada kadib markaa faham tennis uu yahay kadib dhacdo adaa fahmi kartid haddii tenniska afraad aad dhahday tenniska afraad dhacdo ka hadlaa dhacdo dhici dambe ka hadlaa sax awal horta inaa intaas ha fahantaa kadib ayaa xali kartaa balse haddii intaas fahmi weyso oo fahmi weysay tenniska ma bedeli kartid marka tennisyadu qaarna way fududiin qaarna way adagyiin laakiin badanaa waxaa la tennisya dhammaan way fududiin dadka aqriya oo baraatikeeya ayay u fududiin okay barnaamijkeena halkaas ama cashirkeena halkaas ayuu ku egyahay ciise dambe waxaan soo geli doonaa cashir ayaan soo geli doonaa maadaama ardayda qaar iyo asxaabta ku xiran janaalkani kasoo codsadeen in cashirka la bilaabo practicalka la bilaabo insha Allah anagoo tixgelinayno ila janaalkan wuxuu u furan yahay asxaabta iyo ardayda daneysa maadada Englishka ay u furan yahay wixii ayaga ana amaraan wadantooda uu yahay ayaan ka talinaynaa marka asxaabta iyo ardayda qaarana la soo xiriireen janaalka la soo xiriireen kadib waxay sheegeen inay u baahan yihiin practical ay rabaan practical marka insha Allah ciise dambo waxaan soo geli doonaa cashir oo practical aan soo geli doono oo conversation ah oo labada sheekayso doono hadduu Ilaahay karaan noqdo marka janaalkan waxa ay tahay asxaabta iyo ardaydaba ayaga oo soo saara wixii ayaga dhaxana ayuu ka taliya wixii ayaga danahooda uu yahay maanta English ku baran karaan ama practical ku baran karaan ama grammarada ku baran karaan ama tennisida ku baran karaan ama ereyada ku baran karaan ayaa la soo janaalka la soo geli doonaa hadduu Ilaahay karaan noqdo balse asxaabta iyo ardayda ku xiran janaalka waxaan leeyahay maadaama idinka codsigeena la aqbalay idinkana codsigeena aqbala oo subscribe iyo share iyo like inta baa noo siiya si ardayda kale ama saxaab kale u daneynaysa maadooyinkan oo kale maadadan oo kale ayagana ka faa'iideystaan ayagana si share gareeyaan hadduu Ilaahay karaan noqdo